ma jiraan maanta wax hurdada ugu diidaya qaahira sida ay balaayada abaartu ugu diiday taas oo dhab ahaan ku dirqinaysa dowladda carbeed ee ugu weyn inay wajahdo musiibo cilan iyo xasilooni la'aan aan degayn sidaas oo kale waa waxa jiif iyo joogba u diiday masarta faraacinada iyada oo webiga niilku ahaa halbeegga horumarka qulqulkiisa awgiina lagu xoojin jiray laguna diyaarin jiray ciidamada ha yeeshee masar oo ahayd madaxa iyo hoggaanka ilbaxnimada dhammaanna laga hibaysan jiray kumannaan sano ka hor waxa ay awooddeedaa sare ku ilaashatay xuquuqdeeda biyaha ilaa laga soo gaaro xilliyada masarta casriga ah oo ay xukumayeen jamaal cabdinaasir anwar saadaad iyo maxamed xusni mubaarak balse masawirka iyo xaalka maanta muuqda si walba waa uga duwan yahay sidii jirtay masartii hore waxa ay dhaxlaysaa masarta casriga ah haddaba waa maxay waxa itoobiya u suuro geliyey inay codkeeda kor u qaaddo iyada oo hortaagan qaahira maxaa ku qaaday qaahira inay gasho ama ku tallaabsato dhammaan tanaasulka intaas la eg xaggeese addis ababa ka heshay hantida faraha badan ee ay ku maalgelinayso mashaariicda dhismaha biyo-xireennada oo ku kacaya balaayiin dollar tani waa sheekada maalgelinta biyo-xireenka horumarka yeelkeede masar ma ku guul daraysatay dagaalkeedii biyaha والله لن نقوم بأي ضرر لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر للمياه في مصر laga yaabee in madaxweynaha masar cabdifitaax siisi uusan ogayn in abiy axmed yahay qof aan aqoon afka carabiga inta badanna ah ninaan diinba ku dhaqmin siisi waxa uu u laqimay abiy inuu guto dhaartii caanka ahayd taasina waxa ay la mid tahay adiga oo qof muslim ah u yimid si aad ugu dhaariso afka sayidilmasiix ee kitaabka injiil weliba adiga oo adeegsanaya erayo uusan fahmayn sheekada biyo-xireenka horumarku waxa ay soo bilaabatay intii u dhexaysay sannadihii 1957 ilaa 1964 xilligaas oo xafiiska Maraykanka ee hagaajinta dhulku uu ku tilaabsaday habraac si guud loogu tirtirayo oogada sare ee webiga Blue Nile-ka si loo asteeyo goobaha ugu wanaagsan ee laga dhisi karo biyo-xireen weyn xilligaasi waxa uu ahaa intii uu jiray xukunkii boqor Hayle Salaase oo ahaa boqorkii ugu dambeeyay ee Itoobiya ha yeeshee qorshahaasi waa laalmay kadib markii uu dhacay afgambigii Itoobiya ee sanadkii 1974 iyada oo waddanku afka ciidda geliyay wixii ka dambeeyay afgambigaas waxa uuba ku jiray xukun adag oo military muddo dheer waqtigaas iyo waayahaas miisaanka awooddu aad ayuu u kala gedisnaa Itoobiya waxa ay ahayd sabool iyo wax mahaysato dagaag ah mana awoodin inay wax dhisto balse Masar oo xoog lahayd waxa ay guul kala soo noqotay dagaalkii Oktoobar waxa ayna gacanta ku dhigtay isbahaysi iyo saaxiibo reer galbeed ah oo waaweyn kadib heshiiskii nabadgelyada oo ku beegnayd markii waddanku galay u wareegidii la soo dhaweeyay ee dhinaca reer galbeedka Itoobiya waxa ay xilligaas ku jirtay xukun hanti wadaag ah oo uu taageeraya midowgii Soofiyeed sida aad og tahay daawadaha sharfanow sida ay qabaan xeerarka dagaalkii qabooba ma jirin biyo-xireen loo ogolaan doono in laga dhiso darka webiga Niilka kaas oo horumar weyn u horseedi kara dawlad lagu tiriyo inay ku hoos jirto xukun uu taageero midowgii Soofiyeed arrinku kuma hakan miisaanka awoodda dagaalkii qabooba waxaase si calwiyay oo dhiiqada ama dhiidhiga sii geliyay xaalka waxa ay ahaayeen in Itoobiya tahay waddan ay ku nool yihiin 80 isir loogana hadlo wax ka badan 100 af ama luuqadood sidaas awgeed hardanka isirka iyo afka la xiriira waxa uu hoggaanka u hayay xaalka sii xumaanaya ee Itoobiya waxa uuna ahaa caqabad hortaagan in dalku ku midoobo iskuna raaco maalgelinta mashruuc horumarineed oo keli ah waxaas oo dhan iyada oo ay jiraan biyo-xireenka horumarku waxa uu galay marxaladda suuxdinta ama miirdaboolka balse ma dhiman biyo-xireenku waxa uu ahaa aragtiduna sida aad garanaysaan ma dhimato balse waxa ay sugtaa waqti ku habboon si ay dib ugu soo noqoto السد ثم السد ثم السد horraanta sagaashameeyadii wax yar kadib markii uu dumay midowgii Soofiyeed ayna ka joogsatay Itoobiya taageeradii siyaasadeed iyo tii nabadgelyo ee ka imaanaysay Moscow
waxaa la riday xukunkii militari ee Itoobiya talada wadankana waxaa yimid Lagase Sanawi Asres ama Malla Sanawi waa ninka sida daran u nacbaa hanti wadaagga isaga oo gaaray inuu ka bedelay magaciisa Lagase Sanawi isaga oo isu bixiyay Malla Sanawi waxa uu ku dayanayay mid ka mid ah dadkii iska caabinta kala hor yimid shuuciyadda balse nidaamka shuucigu ku fuliyay dil toogasho ah Malla Sanawi wadanka oo dhan waxa uu u raray dhinaca reer galbeedka sidii uu Anwar Saadaad Masar ugu wareejiyay dhinaca reer galbeedka kadib Jamaal Cabdinaasir Malles waxa uu noqday wadaay iyo saaxiib Mareykanku doorbido sidaas oo kale waxa uu noqday farsamayaqaankii kobaca dhaqaalaha Itoobiya iyo hogaamiyaha xoreynta dhaqaalaha marka la joogo gobolkan kamid ah qaaradda Sanawi waxa uu arkay in ilaha dhaqaale ee ku jira biyuhu ay yihiin meesha wadanku uga bixi karo balaayada ku habsatay iyo jidka loo mari karo in loo rogo dalkan xarun goboleedka laga dhaliyo tamarta iyo awoodda korontada ama layrka qorshihiisu waxa uu ku dhisnaa aragti cilmiyeed aad u fudud taas oo ahayd biyo xireenno ayaan ku dhisaynaa darka 12 webi kuwaas oo dadkeena siinaya koronto ama layr aanay u dhoweyn inay gartaan tamarta ama awoodda korontada ayaan ka iibinaynaa dadka iyo dalalka kale waxa aan abuuraynaa deegaan horumarineed oo weyn kaas oo soo saari doona labalaabka wax soo saarka biyo xireenka sare ee Masar sidaas ayuuna ku bilowday dhalandhoolka Itoobiya ee maalgelinta webiga Nile-ka arrintu waxa ay ka soo bilaabatay markii uu dhammaaday dhismaha iyo adkaynta biyo xireenka Takase oo laga dhisay webiga Cadbara ama Takase oo ah mid ka mid ah dararka uu biyaha ku shubo webiga Nile-ku sanadkii 2009 dhismahaasi waxa uu ku kacay lacag dhan 224 milyan oo dollar iyada oo ay jirto inuu saameeyay biyo xireenkaasi hoos u dhaca biyaha Nile-ka ee dhulka masaarida haddana ma keenin dhibaato weyn sababtuna waxa ay ahayd qaadkiisa oo aad u yaraa arrinku kuma joogsan biyo xireenka Takase waxa yimid taxanaha heshiisyo mabda ahaan loo galay in lagu dhiso 5 biyo xireen oo kale sida Gibbe 3 oo laga dhisayo webiga Omo ayna ku kacayso 1 bilyan iyo 6 milyan oo dollar iyo biyo xireenno kale oo la maalgeliyay hayeshe biyo xireenka horumarku waxa uu ahaa mashruuc weyn oo ku dhex jira biyo xireennadaas kaas oo dhismihiisu ku kacayo 5 bilyan oo dollar halkaas marka ay taagan tahay waxa yimid dhibaatadii horumarineed ee Itoobiya waa lacag aad u badan marka loo eego dawlad ay buux dhaafiyeen musuqa iyo saboolku si weynna ugu nool uguna tiirsan kaalmo caalami ah sidee haddaba suurtagal u tahay inay xaqiijiso soo boodka iyo horumarka intaas la eg ha halmaamin in Masar oo aad u horumarsan isla markaana diblomaasi ahaan xoog badan ay diyaar u ahayd inay ku kacdo wax walba si ay u hor istaagto maalgelinta mashruucaas waxa kale oo ay diyaar u ahayd inay howlgeliso diblomaasiyadeeda iyo xiriirkeeda caalamiga ah ee weyn si ay u meel marsato ujeedadaas intaas ku darso in dhammaan labada heshiis ee nidaamiya adeegsiga biyaha Nile-ka ee soo baxay sanadihii 1929 iyo 1959 ay yihiin caqabad hortaagan maalgelin kasta oo caalami ah oo ku wajahan biyo xireen walba oo ku yaala darka webiga Nile-ka haddii ay maya tiraahdo ama diido Masar falanqeeyayaashu waxa ay ku doodayaan in madaxweyne Cabdifitaax Siisi uu ku degdegay arrinta iyo wixii ku lamaansanaaba isaga oo maraya tanaasulkii uu ka soo jeediyay heshiiskii Khartoum sanadkii 2015 haddaba maxay samaysay Itoobiya si ay uga gudubto caqabadii dhaqaale ee haysatay waxa aad dhihi kartaa wadada ay raacday waxa ay noqotay erey bixin dhaqaale oo magaceedu yahay tusaalihii iyo taladii Itoobiya inta badan dawladaha soo koraya waxa ay miciin bidaandeyn si ay u dhisaan mashaariicda caynkan ah maadaama deymuhu xambaarsan yihiin in wax lagu yeeriyo ama aad wajahdo ka jawaabidda dalabaad dibadeed
ayna suurtagal tahay inay saameeyaan intooda badan waxa ay Masar rabto. Itoobiya waxa ay miciin biday wadda ka duwan kana gedisan, balse waddadaasi dhammaanteed ma aha mid cusub, waana maalgelinta ilaha dhaqaale ee gudaha waddanka iyo kaalmo caalami ah. isla habkaas ayay Masar u martay dhismaha biyo xidheenkeeda sare iyada oo ku tiirsanayd kaalmada midowgii Soofiyeed. Itoobiya waxa ay sugtay waqti ku habboon xaqiijinta bootinta. marka la joogo siyaasadda caalamiga ah ma jiraan wax ka fiican kana wanaagsan maqnaanshaha siyaasadeed ama marka ay wadamadu ku jiraan muranada iyo dagaalada gudaha. maqnaanshaha siyaasadeed dhexdiisa ayay dhacaan isbedelada ugu waaweyn caalamku. waa wixii dhacay sanadkii 2011 iyada oo Masar ku mashquushay kala guurkii siyaasadeed ee ka dambeeyay markii la riday Xusni Mubaarak. ciidanka xoogga Masar waxa uu firaaqo u helay inuu qabsado awoodda kana hortago isbedelkii dimuqraadiga ama tala wadaagga ahaa ee la filayay inuu dhaco. isla markaasna waxa uu ku dhaygagay diyaarinta afgambi military oo shintiruskiisu ku dhammaaday 2013. Itoobiyana waxa ay firaaqo u heshay inay ka faa'iidaysato fursaddaas iyo xaalkii murugsanaa ee Masar. ha hilmaamin in dhibaatadii maalgelineed ee qabsatay Masar waagii la dhisayay biyo xidheenka sare ee Masar xalkii loo maray waxa uu ka dhignaa in ammaan laga dhigo kanaalka Suways sanadkii 1955 iyo in ilaha dhaqaale ee kanaal Suways loo rogo biyo xidheen. balse Itoobiya ma laha biyo xidheen, sidaas awgeed maxay yeeshaa؟ يا مواطني إثيوبيا تبرعوا. Itoobiya waxa ay ku cadaadisay bangiyadeeda inay bixiyaan 7% guud ahaan deynta dhaqaale ee loo baahan yahay, isla markaana ay dul saartaan faa'iido yar. shaqaale weynaheeda waxa ay ku waajibisay inuu bixiyo qayb ka mid ah mushaarkiisa oo loogu talagalay biyo xidheenka. Addis Ababa waxa ay dabool qaaday olole iyo yabo qaran si loo soo ururiyo hanti ku filan biyo xidheenka. waxa ay ku dhiirigelisay 3 milyan oo Itoobiyaan qurba joog ah inay maal gashadaan mashruuca. natiijadiina waxa ay noqotay sidan soo socota: 450 milyan oo ugu horeysay. waxaa suurto gasha in la isu keeno dhammaadka sanadkii 2014. waxaaba la sheegaa in lacagtaasi gaartay 1 bilyan. waxa uu ahaa 1 bilyan oo ka mid ah asal ahaan 5 bilyan oo loo baahnaa oo shacabka Itoobiya ka bixiyay jeebkiisa iyo nolol maalmeedkiisa. dhismayaashii ugu horreeyay waa dhammaadeen, lacagtiina waa go'day, shaqadii biyo xidheenka ka socotayna waa istaagtay. sidee la yeelaa haddaba؟ اطلب المال ولو من الصين. shiinaha waxaa lagu tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah maalgashadayaasha ugu waaweyn ee qaaradda Afrika. waxa uu hardan kulul kala dhaxeeyaa reer galbeedka. shiinuhu waxa uu ku tartamayaa heshiisyada horumarinta wadamada saboolka ah. sidaas oo kale shiinuhu waxa uu maalgashaday qaybta biyo xidheennada oo keli ah 22 waddan oo Afrikaan ah intii u dhaxaysay sanadaha 2010 ilaa 2020. sidaas awgeed Afrika waxa uu u joogaa si awood leh. waa maalgelin ballaaran iyo deeq aan xad lahayn. waa awoodda jilcan ee shiinuhu adeegsanayo si uu u dhiso boqortooyadiisa Afrika. Itoobiyana waa mid ka mid ah xarumihiisa. sanadkii 2002 shiinuhu waxa uu ku maalgashaday biyo xidheenka Takase ee Itoobiya 224 milyan oo dollar. sanadkii 2012 waxa uu 500 milyan oo dollar ku maalgashaday biyo xidheenka Gaba 3. sanadkii 2013 waxa uu ballan qaaday inuu ku maalgelinayo khadadka korontada ama layrka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee biyo xidheenka horumarka lacag dhan 1 bilyan iyo 2 milyan oo dollar. hantidaasi kuma imaan mana ahayn mid wadata astaanta ama tilmaanta deyn ama amaah si aanay uga caroon Masar iyo Kenya. sanadkii 2019 shiinuhu waxa uu ballan qaaday inuu bixinayo 1 bilyan iyo 8 milyan oo dollar si loo ballaariyo shabakadda korontada Itoobiya. balse waxa si weyn loo rumaysan yahay in qayb ka mid ah hantidaasi ay si toos ah u gashay hawsha dhismaha biyo xidheenka horumarka. ka qaybgalka iyo saamiga shiinaha ee maalgelinta tooska ah oo keli ah
halkaas kuma istaagayo balse Addis Ababa waxa ay heshiis la gelaysaa dhowr shirkadood oo Shiinuhu leeyahay sida shirkadda dhismaha ee Gasahop Group oo dawladda Shiinuhu leedahay ujeedadu waa ka qaybgalka dhismaha biyo xidheenka iyada oo qaadanaysa $40 milyan iyada oo la shaqaynaysa laanta Shiinaha ee shirkadda Faith Hydro ee Jarmalka oo qaabilsan soo daabulidda mashiinada turbiinada waxa ay ku qaadanaysaa $110 milyan ma aha shirkadaha Shiinaha oo kali ah Itoobiya waxa ay soo jiidatay taageerada heshiisyada shirkado badan oo reer galbeed ah sida WeBuild oo Talyaanigu leeyahay Faith Hydro oo Jarmalku leeyahay iyo Alstom oo Faransiisku leeyahay waxa jira macluumaad tilmaamaya in dhammaan dawladaha xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka iyo dawlado kale oo awood fulineed ku leh gobolka iyo adduunkuba ay leeyihiin shirkado ka shaqaynaya dhismaha biyo xidheenka horumarka وحيثما تحل الصين تأتي أمريكا bii'ad ama deegaan uu ka jiro tartan kulul suuragal ma aha in Maraykanku uga maqnaado garoonka cidda ay ishayaan ee sii kobcaysa sanadkii 2019 Ameerika waxa ay ilayska cagaaran ama ogolaansho siisay sanduuqa lacagta adduunka si uu 2 bilyan iyo 9 milyan u siiyo Itoobiya ujeedadu waxa ay ahayd dib u soo celinta isu dhignaanta dhaqaalaha iyo qarashka tani waa kaalmo aad deeqsi u ah iyada oo wadata saameynteeda dhaqaale waxa ay xoojinaysaa kalsoonida hay'adaha caalamiga ah iyo daynsiyayaasha Itoobiya Maraykanka qudhiisu Febraayo 2020 wasiirkiisa arrimaha dibadda Mike Pompeo waxa uu tagay Addis Ababa waliba jawi u muuqday mid soo dhaweyn iyo rajo fiican leh una dhigan kalgacalka Itoobiyaanka waxa uu ugu yaboohay fursado maalgelineed oo dhab ah isla markaana aan ahayn tororog iyo musuqmaasuq isaga oo u durxulaya Shiinaha ma ahayn oo kali ah damaanad qaad cidla ah March 2020 Maraykanku waxa uu sanduuqa lacagta adduunka u xaqiijiyay dhabnimada rabitaankiisa ku aadan Addis Ababa waxa uuna shaaciyay inuu diyaar u yahay ku maalgelinta Itoobiya lacag dhan $5 bilyan iyada oo la marinayo hay'adda maalgelinta caalamiga ah ee Maraykanka DFC oo hawsheedu tahay horumarinta adeegga danaha siyaasadeed ee Maraykanka iyada oo adeegsanaysa howlaheeda horumarinta oo waa maxay danta Maraykanka uga weyn inuu ka hortago awoodda fulineed ee Shiinaha ee sii fidaysa isla markaana ka qayb galo isbihinbihinta istiraatiijiyadeed ee ka dhex socota mid ka mid ah wadamada ugu xooga badan Afrikada soo koraysa haddaba iyada oo ay jiraan arrimahaas oo dhan mowqifka Itoobiya waxa uu noqday mid adag oo xoogan Masarna waxa ay ogaatay in Maraykanku dhagray ama qiyaamay ma aha Maraykan oo kali ah Shiinuhu xitaa waxa uu diiday inuu ku tilaabsado nuuc walba oo cadaadis ah oo la saari kara Itoobiya balse labadaas dhaawac waxa laga fahmi karaa sida uu u yaal una socdo tartanka caalamiga ah hayeeshee waxa jira jug ama dhaawac siyaasadda caalamiga ah ee Masar quseeya oo aanay macnayntiisu suurtagal ahayn waa dhaawac ku yaala dhabarka Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa ay gadayaan ama suuq geynayaan inay yihiin baxnaaniyayaasha soo koridda ama qabsashada ciidanka ee talada iyo xukunka Masar waxa ayna weyn u sameeyeen in Masar tahay aagga hore ee hardanka siyaasadeed si waafaqsan qorshahooda balse iyada oo ay jiraan howlahaas oo dhan haddana suuragal ma aha in si fudud loo fahmo meesha ay ka taagan yihiin biyo xidheenka horumarka labadan dawladood waxa ay ku maalgashanayaan Itoobiya lacag dhan $7 bilyan labaduba waxa ay taabageliyeen waanwaantii taariikhiga ahayd ee dhexmartay Itoobiya iyo Eritrea heshiiskaas awgiis ayuuna Abiy Ahmed ku helay abaalgudka Nobel ee nabadda waxaas oo dhanse waxa ka daran Imaaraadku waxa uu bixiyay lacag dhan $3 bilyan oo ahayd ammaano iyo maalgashi lagu samaynayo Itoobiya Sacuudiguna waxa uu bixiyay $140 milyan oo ahayd dayn loogu talagalay in la dhiso mashruuc ku saabsan ka faa'iideysiga tamarta iyo awoodda qorraxda Riyadh waa inkirtay inay wax maalgashi ah ku leedahay biyo xidheenka horumarka hayeeshee
ma diidana rabitaankeeda ku wajahan dhisidda mashruuc koronto ama layr oo isku xiraya kana dhexeeya dowladaha khaliijka iyo itoobiya mashruucaasi waxa uu sii marayaa yemen qorshahaasina waxa uu qayb ka yahay ololaha sacuudiga ee yaraynta ku tiirsanaanta shidaalka iyo gaaska marka la joogo soo saaridda dabka ama korontada gudaha sacuudiga maalqabeenka sacuudiga maxamed xuseen camuudi ayaa lagu tirinayaa inuu ka mid yahay dadkii ugu horreeyey ee lacagta ugu yaboohay biyo-xidheenka horumarka isaga oo bixiyey lacag dhan 88 milyan oo dollar sidaas awgeed waxa muuqata in inta badan dowladaha caalamku itoobiya u arkayaan fursad soo kobcaysa dhammaan dowladaha waaweynna waxa ay maalgashanayaan mashaariicda itoobiya iyada oo ay dowladahaas ku jiraan isbahaysiyada waaweyn ee qaahira iyada oo laga duulayana itoobiya waxa ay noqotay aragtida awood dhaqaale oo loo marayo maalgelinta isdabajoogga ah siyaasad ahaanna diblomaasiyadeeda koraysa marka la eego sida loo arko itoobiya lana garab dhigo sidii xaalku ahaa 10 sano oo keli ah ka hor itoobiya waxa ay ka cabanaysay naxariis darada diblomaasiyadda masaarida iyo awoodda sare ee ay masar ku leedahay gobolka webiga niilka maantana waxa ay masar ka cabanaysaa naxariis darada diblomaasiyadda itoobiyaanka iyo in isbahaysiyadeedii ay dhabarka xijiyeen masar ma jiro qof shacabka masaarida la raba inuu oomo ama haraado ama gaajo iyo baahi la balanbalo masar waa dowlad dhexe shacabkeeda iyo ilbaxnimadeeduna waxa ay dhiseen halbowle muhiim u ah ilbaxnimada iyo haybta carbeed ha yeeshee waxa laga yaabaa in qaahira u baahan tahay dib u akhrin cusub oo ku saabsan xaalka iyo waaqica isu beddelaya si gun iyo baar ah waana isku mid xitaa haddii lagu heshiiyo in qaanadaha biyo-xidheenka la buuxiyo iyada oo la raacayo aragtida masar iyo midda itoobiya middood biyo kama dhibcaanka sugan ee keli ah ee la isku raacsan yahay waa in biyo-xidheenka itoobiya uu hoos u dhigi doono saamiga masar ee biyaha webiga niilka waxa la isku khilaafsan yahayna waa sida uu u soo dedejin karo hoos u dhaca biyaha webiga qaahira waxaa waajib ku ah inay hesho wax u beddela islamarkaana ay shacabkeeda runta iyo dhabnimada arrinta u sheegto halkii ay shacabka u jeedin lahayd dhinaca qorraxdu u dhacdo oo aanay ka imaanayn wax aan ahayn dabayl bacaad kulul iyo wareer كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا